حكمنا ودن كفيلان هساها توحى الله يابله إن جاليد ugu badan ee dalkaasi ku nool ay yihiin Soomaali oo waliba haday madow tahayna waa Soomaali haday muslimiin yihiinna waa Soomaali oo jaaliyada ugu badan ee dalkaasi degan waa dad Soomaali ah waxa halkaasi jooga wariye Cabdisalaam Ibrahim Hereri oo waayadanba ku jira safar tabliiq oo xagga saxaafada waxaan kala sheekaystay Hereri Soomaalida iyo qabowga iyo barafka la yaab kale halkaasi ka jira gaar ahaan magaalada Oulu ee dalka Filan عشاي آدي أدبض ما هتصنتهاي وأنا كسلام يا دقي أصحابتك كلامه بوقشوين كي قدنا على الصحافة ده أو بحسين تبليغ الصحافة ده وحا أني مكتشوغا مقال الله يده أولو وحي كنت الله عرف كوقوي ودن كفنلند ودول آدي أنعانو وقا دبوغا يبرف كفرها بدن لا كدعا حالي مركي أنو سوق اللي مقالة أولو عشاي ماينستيدي واحد ماينستيدي وحويه انت بيو كبر فوبان بي صدن درجو hoos uga martay marka barafkii wuxuu isku bedelay dhagax iyo dhalo wallahi waxayna shaqo ku lahayn buu isu bedelo horta de baraf buura ah ayad caashay arkaysayo marka jidka iyo laga xaadho ayuu buura noqdaa wadada hareeraheeda yaala waa gartay dhirtana waxaad moodaa kuwa booskaadhada lagu soo sawiri jiray oo iyagoo sidan aanu weligay Allah ma arag waa dhirtii oo deedna caleema ma laha dabcan laakiin laan walba barafku saaran yahay dadkana waxaad moodaa caashay sida loo labisan yahay waadana si aan u labisanin aanad kaba dabaalanaynin waa gartay inay dayaxa tagayaan waxyaalihi waxaad dhar leedahay baad xiranaysaa indhahoo keliya waa inay kusoo jeedaan laakiin walaal waxa mucjisada ah weligay aanan anigu meel laba adiyada ku arag waxa weeye qorraxdu waxay u soo baxdaa ku dhawaad 10 subaxnimo qorrax la sheegana ma aha waa deeftiinkeedii uun haye dabadeedna 3:00 ilaa 4:15 la ayay dhacdaa salaadii jimcaha caashay waxaanu tukanay 12 iyo rubuc 15 daqiiqo kadib ayaa haddana deedna la adibay casarkii iyadoon dadkii masaajidka ka dhamaanoo sidii loo fadhiyo 15 daqiiqo u dhaxeeya duhurkii iyo casarkii dabadeedna markaas haddana 4:15 loo la tukanayaa maqribkii laakiin waqtiga iyaguna ay dhibaatada ugu badan mutaan waxa weeye waqtiga rabadaan soo koo inta badan ku dhacda xagaaga saacad kaliya ayaa qorraxdu ay ka yaraan libidhaa kama dhacday way ka libidhaa marka saacad iyo badh waqti ay ugu sheegaan ama saacad iyo rubuc oo kaliya ayaa dadku u afuraa casheeya wixii uu qaadi karo uu qaadaa 22 saacadood iyo badh bay soomaan taa ka waran marka malaha meesha looguma talagelin hadda dad sooma inay meesha joogaan looguma talagelin malaha iyo dad salaati kala midna iyaga qudhoodo imika muddo 20 sanadood dadka badankooda wadanka joogay baa doodaasi wali taagan tahay qaar ba iyagu ku adkaystay inaan waqtigaasi saa jeegaysan la soomi karin dabadeedna waxay sameeyaan qaar Sacuudiga la soomaan qaar Turkiga la soomaan qaar wadankiiba la soomaan qaar meelo kale la soomaan qorraxdii oo dhan wala iska dhiga tiramiya iyo iftiinkii ciidu kuma xirnaba dadka qaar kood laakiin qaar ba ku adkaystay oo yiri anagu sidii diintu tiri inta qorraxdu ay maqan tahay qorraxdiina de qorrax la sheega ma waa qorrax dhacaysa ma waa qorrax yara libdaysa saacad iyo badh bay maqnaanaysaa hore ka soo noqonaysaa ha salaamaad wadana sidee dunida noocaasa caashay waxa ka sii daran waliba inkastoo wadamadan Scandinavia ay isku wada mid yihiin haddana halkan waa cidhifkii waqooyiga adduunyada dhulka Laablaan la yiraahdo animaka kala hadlayo maanta kale dadku way faraxsanaayeen oo waa -25 -23 marka waxay ku leeyihiin waaba la saayiray maanta dirmadan tan walaal laba xero oo qaxootigu ay ku jiraan ba magaalada duleedkeeda ku yaala haye hadda adoo qiyaas xiriyaha qaxootiga oo ku yaala dhul sidan oo kala ah oo Soomaali badan ay ku jiraan waaw xiriyaha marka sidee u egyihiin bal dad sawir ka bixiso ma teendooyin ba ma dhismayaal dhisan oo iska xero loogu magac daray laakiin facility-ga dhan haystaba طبعا haddii facilities ko dhan aanay haysanin nololiba ma suurta galayso run ahaantii xiriyaha qaxootiga wali maan tagin laakiin maanta ilaa berri baan ku tala jiraa inaan tago waxa la ii sheegay ilaa 40 qof oo Soomaali midkiiba inay ku jiraan waana dadkii imika soo galay oo wadanka markay inta badan soo galaan waa loo kala qaybiyaa dalka oo dhan
markaa waa dadkii cusbaa ee hadda soo galay laakiin guud ahaan waddankan caashay waxa ku nool ilaa 12,000 oo Soomaaliya ilaa 22 sanadood ee ugu dambeysay ayay waddankan joogeen badankoodu qaar fara badan oo kamid dhalashada ay qaateen markii ugu horeysay waddankan ay yimaadeen waxay la kulmeen cunsuriyad aad u fara badan iyo iyagoo la jirdiidayay taa way ka yara leeyihiin imika laakiin waxa kale caashay in la xuso mudan waxa weeye weligaa yaalaha meed adigoo aragtay ama maqashay waddan Soomaalidu ay yihiin jaaliyada ugu badan hadday madow yihiin iyaga ugu badan hadday muslim yihiin iyaga ugu badan haddii carabnimo la yiraahdo xitaa Soomaalida ugu badan waddankan waa gartay maxaa taa ugu wacan waa leeyahay qaxootiga faraha badan ee soo galay 12,000 oo kale jaaliyada ay ka joogaan ma jirto hay Cabdisalaan magaalo sidaa u kadeed badan oo -30 iyo ka badan ay marayso qabowga uu maraayo halkaanaba la joogi lahayd iyadoo -kiiba aan la gaarin oo 30 iyo 20 iyo ay marayso maxaa u doontay meel noocaas maxaa galay tabliiq kale wuxuu ahaa caashay tay keentay waa arinta adimaka ka dhawaajisay la fahanteeda bal hadda inaan arko meel -30 degree centigrade ama ka badan oo barafkuna uu saa uga dhacayo oo qorax nafle oo la sheegana aan la arkin iftiinkeeda mooyaane war hadda sida dadka Soomaalidu ay ula qabsadeen marka magaaladan Ooliyo imika kala hadlay 400 baa degan Soomaalida iyo inta xariyaha ku jirto ilaa 100 ay sheegay inay ku dhow yihiin marka maba yaraba cilifka adduunyada hadday 500 ku joogaan Soomaalida dunida oo dhan bay u qaybsanta marka meel walba ay joogaan aad iyo aad waxaan u malaynayaa dayax iyo Mars iyo meelaha imika la sahminaya hawada sare hadii la tagay qaar u bal loogu tagay aad iyo aad ma santa Cabdi